waxaa sameeyey isku soo xiray ka soo buuxiya gaariga sayid cali wuxuuna u soo dhiibay eedaysanaha koobaad xasan cali macallin barre xasan markii la qabtay haddii khatartiisu gaarigaas ummadda ka badbaadi lahayd waxaa ogaaday oo soo wacay xasan sayid cali in la haayo markuu ogaadana automatic wuxuu qarxiya gaariga isaga gacantiisa ku qarxiya inuu gacantiisa ku qarxiyana sifooyin caddaynayaan haynaa toddobaad gaarigaas gacanta sayid cali ku jiray gaarigaas waxaa lagu qarxiya tiknoolajiyadda qarxi kartay ee taleefon gaarigaas ku dhex jiri kara intaas haba yaraatee ma jirin sayid cali uu soo jaajgareeyay taleefoonka ku xirnaa gaarigaas mar kale sidiisu sayid cali waa farsamo yaqaan isaga gacantiisa ku sameeysta qaraxa isagana awoodo inuu meeshii loogu talagalay markii loo geeyo inuu qarxiyo eedaysanayaashan waxay muujiyeen khidad cusub oo al-shabaab ay la soo baxeen markii hore hadday ku gabanayeen diinta islaamka oo magacyada abuu iyo magacyo diimeed ay isticmaali jireen maanta waxay u beddeleen joy steam boy xasan boy magacyo noocaasa isticmaalayeen dad isticmaalaya isqaabkii alkuliistaha oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan wey dhagarqabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore haddii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii alkuliistayaasha iyo qaabkii maxaa la jiray ii sheegay tociyaalsiyaha in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan maxkamadda sharaf kale waxaan ka codsanayaa labada eedaysana sidii xeerligii ugu horreeyay u codsaday in lagu xukumo dil toogasho ah eedaysanaha saddexaad oo ay caddaynaysa dhaqamadiisa la noolaanta uu bulshada kooxdan la noolaa iyo magaca uu beddeshayba waxaan codsanayaa ciqaab xariga oo u qalanta lagu xukumo wabilaahi tawfiiq marka ninkan wuxuu ahaa nin darawal ah baabuurtan yiraahdo laangaruusulada ka shaqeysa marka ayuu darawalka ahaa muddo badan ay qabteen ay xireen nimankaas ayagu oo ku eedeynay darawalda isticmaashaa marka ugu dambaysa waxa la haddaan dib dambe jidkan u soo martay waa ku dilaynaa sidaas iyo uu soo cararay ugu dakaa gudaha ku deganaa madiina ku deganaa ilmihiisa iyo reerkiisa waxaa jira marka cabsi ku joogay meesha hal marag ahna meesha lagu soo qoran qiraal asaga ahna lama haayo weligiisna ma noqon marka 383 oo hadda aadiisa ku qoran waa qof markuu qoro waa inuu ku danaysta ama dambiye kale uu ku galo ama waxyaabo kale uu ku farsameeyo hal xabo uu sameeyay male magacaas uu khaldayna waa sheegay wuxuu yiri darooga iga badatay baarasna kuma imaanana magaca saxda asaa sheegay oo yiri warmiyo raaliga hada magaci haday in sheegay magaci saxda ma ah dhageysiga garmaqalka la xiriira saddexda eedaysane intaas ayuu ku dhameystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal 1 xasan cali macallin barre xasan boy 22 jir ah ina faadumo maxamed abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir 2 sayid cali aadan nuur steen boy 24 jir ah ina daahiro abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir 3 muxudiin maxamed axmed khaliif CJ 19 jir ah ina maryan saalax yaxye ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir kuwaas oo xafiiska xeedaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb magaalada muqdisho soo geliso qaraxyada eedaysanaha koowaad xasan cali macallin barre waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay dhigista gawaarida qaraxyada goobaha ay shacabku ku badan yihiin isagoo taariikhdu markay ahayd 26 bishii 11aad 2018 dhigay suuqa kaawagoday ee degmada wada jir gaari noociisu ahaa fil dhar cadaan ah gaarigaas oo ku qarxay isla goobtaasi iyadoo ay ku geeriyoodeen 12 ruux kuna dhaawacmeen 7 ruux oo kale eedaysanaha ayay ciidamada amnigu qabteen isagoo wada ka ah gaariga ku qarxay suuqa kaawagoday ee degmada wada jir eedaysanaha labaad sayid cali aadan nuur steen boy waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo gelinta
magaalada muqdisho gawaarida ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo farsameyntooda. sidoo kale eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey in uu eedaysanaha koowaad ku tashkiiliyey ku biirista kooxda al-shabaab qaybteeda qaraxyada soo gelisa magaalada muqdisho, isla markaana baray wadista gawaarida una dhiibay gaadhigii ku qarxay suuqa Kaawagoday 26 bishii 11aad 2018. eedaysanaha saddexaad Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyo in uu hay'adaha baarista u sheegay magac been ah. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in abtigii Sayd Cali Aadan Nuur uu ku tashkiiliyay in uu la shaqeeyo kooxda al-shabaab, kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo. sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheekh Ibraahim uu geeyay degmada Wadajir gaar ahaan suuqa Kaawagoday, kadibna uu gaariga shil la galay, sidaasna ay ciidamada amnigu ku qabteen. intii la wareysanayana uu qarxay gaarigii uu waday. markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Sayd Cali Aadan Nuur uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyay shil uu ku galay xaafadda Kaawagoday, isagoo sheegay in eedaysanaha uu watay gaari noociisu yahay fildar cadaan ah kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa Kaawagoday. markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo waday gaari noociisu yahay fildar cadaan ah uu shil galay, sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday. intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedaysanuhu uu isku dayay inuu baxsado, hase yeeshee ay qabteen. markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah dukumiintida kale ah: 1 cadaymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad iyo labaad; 2 liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxii ka dhacay suuqa Kaawagoday degmada Wadajir 26 bishii 11aad 2018; 3 sawirrada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa; 4 furaha gaarigii fildarta ahaa ee qarxay oo uu waday eedaysane Xasan Cali Macalin Barre. markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy, 2 Sayd Cali Aadan Nuur Stiin Boy ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay: 1 dembiile shabaab Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy dil toogasho ah; 2 dembiile shabaab Sayd Cali Aadan Nuur Stiin Boy xabsi daa'in. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ xabsiga laga sii daayo. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan. wabilaahi tawfiiq.